haddii aynu ku bilowno maxkamadda gobolka banaadir ayaa baafinaysa hinde ibraahim maxamuud iyo cabdulaahi axmed raage oo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyey lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada iyo in ay lacagaha ay u ururin jireen magafayaasha dadka tahriibiya ee dalka. maxkamadda gobolka banaadir waxay idinla socodsiinaysaa in markaasi looga baahan yahay inay si degdeg ah maxkamadda ay ku hortagaan labadaasi eedeysan ayaana sidoo kale lagu yiri maxkamadda. labadan eedeysan ayaana sidoo kale waxaa lagu kala magacaabaa hindi ibraahim maxamuud, ina faadumo maxamuud iyo sidoo kale cabdulaahi axmed raage, ina muumino cali axmed. waxaana sidoo kale ay maxkamaddu ay sheegtay in looga baahan yahay in ay si degdeg ah ay ku hortagaan maxkamadda gobolka banaadir. waxaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay markaasi ay lacago ay u ururiyeen kooxda argagixisada iyo sidoo kale kuwa kale ee magafayaasha ah ee dadka tahriibiya sida ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir. maxkamadda ayaana sidoo kale waxay ugu baaqday in si degdeg ah ay maxkamadda ay ku hor yimaadaan si loo weydiiyo su-aalo kala duwan. gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa mar kale waxa uu ka hadlay wax ka beddelka lagu sameynayo arrinta dastuurka, waxaana uu sidoo kale uu ku eedeeyay madaxda kasoo horjeeda inay caqabad ay ku yihiin dowladnimada iyo sidoo kale horumarka. madaali waxa uu sheegay in dastuurka oo la dhammaystiro ay ku jirto rabitaanka dadka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale horumarka dalkeenna. waxaana uu sidoo kale uu sheegay in haddii aanan la dhammaystirin ay caqabad horle ay soo wajihi doonto dadka soomaaliyeed. dowladnimadu waxaa ka dhiman haddii adduun weyniye aqoonsaday, haddii cunaqabatayn turka laga qaaday, haddii deyntii laga cafiyey, haddii maaragtay wax kasta ay hor u socoto, meesha ugu muhiimsaneeday waa dhammaystirka dastuurka. oon hadda noo muuqanayso niman akhyaar oo asxaab ah oo aan kulligoodba asxaab la wada yahay inay xoogaa hadda ay farqaha ku dhegan yihiin. taasna waxaan leenahay ha laga fuqo faraqa dastuurka laga fuqe kolba cid unbaa dhammayn laheede in la dhammaystiro waxaa ku xiran dowladnimadayna. haddii maalin kasta dastuurka uu laalnaado annaguna waa laalnaanaynaa. waxaa kaloo ku maqan xuquuqdii gobolka banaadir waxay ku maqan tahay dastuurka. kulligeen banaadir aan wada degannahay, shacabkii muqdisho aan nahay. muqdisho matalaad may ku leedahay baarlamaanka kuma laha. muqdisho caasimadeeda waxaa go-aan ka gaaraya baarlamaanka soo socda soo lama dhihin ka soo socda waakii ma ilaa qiyaamu saaca kanaan rabnaa inuu noqdo haddii ilaah yidhaahdo. marka taasina haddii ilaah yidhaahdo meel kastoo joogna aan codkaynu ku baahino kuna biirino inuu dastuurka la dhammaystiro ayaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaali. waxaana uu sidoo kale uu ka hadlayay dhammaystirka arrimaha dastuurka. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi ayaa waxa uu ka jawaabay hadaladii dhowaan kasoo yeeray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne shariif. faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdimaajid cabdiraxmaan aadan. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa ka jawaabay bayaan ka soo baxay magaalada garowe oo ayna ka soo saareen madaxdii hore ee dalka farmaajo iyo sheekh shariif, kuwaas oo ka hor yimid qorshaha wax ka beddelka dastuurka ee ka socda baarlamaanka soomaaliya uuna gadaal ka riixayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxa uu bayaankiisa uu ku bilaabay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxay sheegeen in aan dastuurka la dhammaystiri karin inta ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo somalilan. puntland iyo somalilan ma ka maqna ee wakiilada matalaya labada aqal ee baarlamaanka ayay dhex fadhiyaan oo ay ka shaqaynayaan. sidoo kale waxa ay ka mid yihiin golaha xukuumadda ee lagu jaangooynayo siyaasadda qaran. shariif iyo mudane farmaajo waxay la hadlayaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, isla markaana waxa ay xaqireen oo ay iska indho tireen xildhibaanada iyo sanatarada ay matalayaan shacabka dowlad goboleedyada soomaaliya. marka hore madaxweyne waxaan kula talin lahaa waa xildhibaano inay afkaartooda iyo aragtidooda baarlamaanka geeyaan. midda kale siyaasaddu waa matalaad. madaxda dowlad goboleedyaduna iyagu ayaa shacabkooda usoo dooray wakiilada siyaasadda golayaasha qaranka, iyagoo xaq u leh wax ka beddelka dastuurka. iyaga ayaana u jaangoonaya ayuu yidhi.
sidoo kale waxa uu yidhi haddii wax ka beddelka dastuurka waa waajib shaqo oo qaran saaran mudanayaasha labada aqal baarlamaanka koob iyo tobanaad halka is-hor istaagga siyaasiyiintu ay ka damacsan yihiin in dalka lagu curyaamiyo ayuu yidhi haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa ololaha doorashada ee ku lug lahaa waxa uu sheegay in siyaasiyiin ay kasoo horjeedaan in wax ka beddelka dastuurka lagu sameeyo sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed garo dantaada oo ku taageer baarlamaanka ku matalaya gudashada waajibaadka dastuuriga ah ilaalinta dantaada qarannimadaada soomaaliyeed oo guud ahaan ayuu yidhi hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa imaanaya xilli dhowaan shir ugu furmay magaalada garowe madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdilaahi farmaajo iyagoona kasoo horjeeda wax ka beddelka dastuurka waxaana shirkaas goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo in horeba sheegay in wax laga bedeli karo dastuurka aanan loo dhammayn taasi beddelkeedana puntland aysan qayb ka ahayn cabdimaajid cabdiraxmaan aadan aad buu u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan waxa uu la qaatay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale wakiilka unisef cabdiqaadir maxamed nuur ayaana sidoo kale adkeeyay muhiimadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso ka hortagga tacadiyada caruurta gaar ahaan askaraynta iyo sidoo kale xadgudubyada kale ee ay wajihi karaan ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo wakiilka hay-adda unisef ayaana dhankooda waxay bogaadiyeen dadaalada xukuumadda federaalk soomaaliya ee la xiriirtay ilaalinta xuquuqda caruurta waxay sheegeen inay muhiim ay tahay sidii caruurta markaasi looga fogeyn lahaa askaraynta iyo sidoo kale arrimaha ciidamada waxaanay ku baaqeen in la xoojiyo shuruucda tilmaamaysa xuquuqda caruurta iyo sidoo kale joojinta howlaha uu sharcigani u diidayo soomaaliya ayaana sidoo kale ka mid ah dalalka caruurta loogu adeegsado askaraynta dhinaca ciidamada iyadoona sidoo kale marar badan hay-adaha caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ay markaasi ay ku eedeeyeen dowladda iyo sidoo kale kooxda al-shabaab inay caruur badan ay askareeyeen una adeegsadeen dagaalada inta badan ka dhacayay soomaaliya taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa waxa uu sheegay in dhowaan mar kale maxkamadda racfaanka gobolka banaadir la horgeyn doono eedeysana sayid cali macalin daa-uud macalin mahdi ayaana sidoo kale waxa uu sheegay maxkamadda gobolka banaadir ayaa horay dil toogashaa waxay ku xukuntay sayid cali macalin daa-uud oo xaaskiisa luul cabdilcasiis ku gubay magaalada muqdisho maanta waa weydiino waxaan waa la soo qabtay waana la xukumay waxaan sugaynaa in tiirka la geeyo maalinta tiirka la geenayana inuu asaga yahay sayid cali inuu yahay inuu qofka leeyahay inaan iska hubinaan rabnaa intaasay maanta yidhahdeen marka waa ilaahay mahadiis soomaalida waxay ku maamaadaa waxuu dhaha diide waa waxuu dhala diide innagoo wada jirnaan nira ninkaas waa keenaynaa waana keenaa dhammaan hay-adaha ammaamka iyo maamulka gobolka banaadirba ilaahay fadligiis waxaan rajaynaynaa sidaas lamida inaa cadaalad aad ku qanacsan tihiin inaad gaartaana waan rajaan ka qabnaa waan rajaynaynaa intaa kadib shirkeena wuxuu yahay dulucdiisa waxay tahay ammaanka in laga wada shaqeeyo sidaa la socotaan shacabka dharkeyle maahana shacabka caasimada ku nool inaan fariintan gaarsiinaynaa cadowgii waxay la soo baxeen dhaqamo ka duwan dhaqamadii hore sidaa la socotaan markii baaristii la adkeeyey wada shaqayntii shacabka iyo markay iyo bulshadii iyo ciidamadii hay-adaha ammaanka iyo maamulkiiba markay wada shaqeeyeen kadib waxay la soo baxeen dhagar ay u maleegayaan shacabka oo iska dhigayaan dad ganacsanaya iyagoo iska dhigaya dad ganacsanaya inay boorsooyin la galayaan dukaamadii sidaa la socotaan waxaa lasoo bandhiga waa ogsoon tihiin ganacsiga inay inta boorso gelshaan ku qarxinayaan inta bac soo qaataan inay meel dhigayaan inta kululeyso soo qaataan oo meel dhigaan inay ku qarxinayaan waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay inay shacabka caasimada ku nool ka foorjignaadaan taxadarna ay sameeyaan sidoo kale waxaa shacabka caasimada ku nool looga baahan yahay iyo shacabka soomaaliyeedba meel walba ay ku arkaan qof amni darro ka shaqeynaya oo qawaarija oo qof muslim oo soomaaliya inuu dilo raba inay soo gudbiyaan oo sheegaan runtii qofka qawaarijka ee shabaabka dhibano waxaa ka ah qof kasta oo muslima oo soomaaliyeed oo soomaaliya ku noolaa ka ah
kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi. qodobadii gudaha warka subaxnimo ayaa soo dhageysateen. dibadda haddii aynu eegno, ruushka ayaa ku guda jira maalmihii baroor diiqa oo loo sameynayay dadkii markaasi faraha badnaa ee ku dhintay weerarkii ka dhacay hoolka bandhiga magaalada Moscow jimcihii lasoo dhaafay. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay in maalin baroor diiqa isagoona sidoo kale wacad ku maray in uu markaasi ciqaabi doono dambiilayaashii weerarkaasi ka dambeeyay, waxaana uu tacsi u diray dadkii markaasi ku dhintay eheladooda. kooxda Daacish ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday hoolka bandhiga ee magaalada Moscow ay ku dhinteen ugu yaraan 133 qof, waana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Russia ka dhaca muddo sanado ah. inkastoo Mareykanku uu sheegay inuu hayo cadeymo markaasi taageerayaasha sheeganaya Daacish, haddana taasi kama joojin Moscow iyo sidoo kale Kiev in ay markaasi farta ay ku fiiqaan Sabtidii maadaama dagaalka Ukraine uu sii socdo. digniino amni ayaana sidoo kale loo diray safaaradda Mareykanka ee Moscow oo ay soo saartay 2 toddobaad, waxaana sidoo kale loo diray Ruushka taasi oo la xiriirtay weerarkan kusoo fool lahaa. inkastoo Ruushka aysan ka hadlin digniintaasi siday uga jawaabeen. 4 qof ayaana sidoo kale looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii argagixiso ee jimcihii lagu qaaday hoolka magaalada Krakow ee markaasi lagu soo xirayay bandhig faneed. eedeysanayaasha ayaana sidoo kale waxaa lagu eedeeyay 2 gaari oo kuwa maxaabiista kuwaasi oo weli markaasi yaala in ay isticmaalayeen xilliga ay weerarku ay geysanayeen. warkii subaxnimo oo aad kala socoteen waa naga intaa.